بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال المصنف باب الجنابة. هذا متكان باب الجنابة fogaanshaha baabkiisii weeye. janaabada waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan albucdu, fogaanshaha weeye. waxaa kaloo la yidhaahdaa dheehitaanka dumarka la dheeho na waa la yidhaahdaa. labadaa macno ayay leedahay. can abi hurayrata, xadiidka koobaad ee baabkan. can abi hurayrata, abu hurayra xaggiisa waxaa laga wariyey radia allaahu allahu ka raadi noqday canhu abu hurayra xaggiisa ana rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalama laqiya wuxuu rasuulku la kulmay hu abuu hurayra fii bacdi duruqi lmadiinati, magaalada madiina waddooyinkeeda qaarkood dhexdiisuu kula kulmay. walxaal buu la kulmay huwa abuu hurayrana junubun mid janaabo qaba uu yahay. qaala wuxuu yidhi abuu hurayra fankanastu waan ka laabtay minhu nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama. fadahabtu markaasaan tegey, fakhtasaltu waan soo qubaystay. uma markaan soo qubaystay kadibna ji'tu waan imid buu yidhi. faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ayna xaggee baad kunta ahaatay yaa abaa hurayra, abaa hurayrow? qaala wuxuu yidhi abaa hurayra kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba, fakarihtu waxaan ka haday an ujaalisaka inaan kula soo fadhiisto, walxaal ana anuguna calaa gayri dahaaratin, dahaaro kayrkeed korkiisa aan ku suganahay. faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam subxaana allah, usabbixu waxaan nasahayaa ilaahay subxaana allah, ilaahay la nasahidiise. ina almu'mina qofka mu'minkaahi laa yanjusu ma najaasoobo. sidaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. xadiidkan waxaan ku jirnaa kitaabu dahaara, qaybta janaabadu hadda ka hadlayaa. wuxuu asal u yahay xadiidkani oo manduuqiisa uu ku tusinayaa qofka mu'minkaahi inuusan najaasoobin, oo najaaso inay asiibto waa laga yaabaa uu mutanajis noqdo, laakiin najaasatlcayn ma noqonayo. najaasatlcayn ma noqonayo. najis waxaa la yidhaahdaa wixii najaasatlcayn ah. mutanajisna waxaa la yidhaahdaa midkii dahaaratlcayn ah laakiin najaaso ay haleeshay. saasay kale yihiin. luqa ahaan waxaa kaloo la yidhaahdaa najiska iyadoo loo wado inuu mutanajis yahay yaa najis laga cabiraa. oo maal maradii daahirka ahayd markii kaadidu gaarto oo kale waxaa la leeyahay mararka qaarkood najis, laakiin macnihiisu waxa weeye bimacnaa mutanajis, waa mid asalkiisu daahir ahay oo najaaso gaarta. najis haddii la yidhaahdo laakiin waa najaasatlcayn weeye, cayntiisa ayaa najaaso ah. xadiidkani marka wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkaahi inuusan najaasoobin geeri iyo nolol midna. waxaa kaloo loo deliishadaa xadiidka laftiisa dahaaratu lmeyti min bani aadam, qofka bani aadamkaahi inuu daahir yahay marka uu dhinto, oo sida xoolaha iyo naftoo ka baxda uusan ku najaasoobaynin gowrac la-aan. marka dahaaratlmeyt min bani aadamna waa loo deliishanayaa. maxaa yeelay bani aadamku waa najaasatlcayn haddii la yidhaahdo aayadda qur-aanka ah, markaas macnaheedii uu meesha ka baxayaa. walaqad karamnaa bani aadam ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, waxaan karaamaynay ibnu aadamka. waa la karaameeyey iyo waa najaasana waa kala labo. marka sidaa darteed xadiidku saasuu u tusinayaa calaa dahaarati almeyti min bani aadam. ayimmada marka qaara waxay leeyihiin fadiiladan hadda la tilmaamay oo la leeyahay mu'minku ma najaasoobo, mu'minka unbay ku gaar tahay, qaaraa leh. laakiin waxaa mashhuura xukunkaasi inuu caam yahay, sida aayadduba cumuumka ay u tusaalaynayso.
qolada daahiriyiinta la yidhaha qaarkooda waxay leeyihiin mushriga qofka ah ee gaalkaahi waa najis weeye maxaa yeelay aayadda qur'aanka yaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najisun sidaas yaa ilaahay yidhi laakiin mufasiriinta badankoodu waxay ku fasirayaan waa najaasada midda qalbiga ah oo gaalnimada ah weeye ee midda kale ma ahan waxaa la tilmaamayahay marka xadiidku sidaasoo wuxuu asal ugu yahay mu'minka dahaaradiisu inay tahay qofka mu'minka inuusan najaasoobaynin marka uu maaragtay dhinto waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya oo uu tusaalaynaya qofka mu'minka ahi markuu rabo shayga mucadamka qof mucadam ah oo ilaahay weyneeyey sida rasuulka oo kale sala allahu calayhi wasalam marka uu la fadhiisanayo inuu dahaaro qabo uu dahaaro ku sugan yahay ayaa wanaagsan xadiidka laftiisaa laga qaadanaya fakarihtu an ujaalisaka wa ana calaa gayri dahaara waa ka yidhi abaa hurayra marka arrintaasaa waxay keenaysaa istixbaabu dahaarati fii mulaamasati alumuuri alcadiima umuurta waaweyn markii la dheehayo qofku inuu dahaaro qabo inay wanaagsan tahay can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi yaa laqiyahu abaa hurayra la kulmay fii bacdi duruqi lmadiina magaalada madiina wadooyinkeedii qaarkood dhexdiisa walxaal huwa abu hurayrana junubun ou janaabo qabo qaala wuxuu yidhi abu hurayra fankanastu lafdigaas alfaad kala duwanaa lagu wariyey fanbajastu iyo fansalaltu iyo fankanastu intaba waa lagu wariyey marka bal hadda lafdiga noo yaalla waa fankanastu inkhinaaska waxaa la yidhaahdaa ka laabashada shayga aad dib uga laabatid adoo weliba isqarinaya marka waan ka dhuuntay ayay u dhigantaa dhuumashay u dhigantaa laakiin inkhinaasku waa rujuucaas wey qaala wuxuu yidhi abu hurayra fankanastu waan ka laabtay minhu nabiga xaggiisa anoo ka dhuumanaya fadahabtu markaasaan tegey faاkhtasaltu waan soo qubaystay uma markaas ka gadaalna ji'tu waan imid faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ayna xaggeebaad kunta adugu ahaatay ya abaa hurayrow qaala wuxuu yidhi abuu hurayra kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba daa junubin wey lafdigaas junuban la yidhaahdo mudakarka iyo mu'anafka mufradka iyo taniyada iyo jamca intaba waa lagu idlaaqaa dhammaan waa ka wada dhexeeyaa naagtu waxay leedahay kuntu junuban ninku wuxuu leeyahay kuntu junuban kunna junuban labadooda waxay ahaayeen kaanaa junuban junubkaasi waa eray ka wada dhexeeya dhammaantood mufradka iyo taniyada iyo jamca mudakarka iyo mu'anafka fakarihtu waxaan kahday buu yidhi an ujaalisaka inaan kula soo fadhiisto walxaal ana anuguna calaa gayri dahaaratin dahaaro kayrkeedaan ku suganahay faqaala markaasuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam subxaana allah sidaasuu yidhi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus marka subxaanadaani waa ismu masderkeedu tasbiix weeye ficilkeeduna sabbaxa weeye mansuubun bificlin maxduufin weeye usabixu waxaan nasahayaa oo ay unazihu subxaana allah ilaahay la nasihidiisa saasuu macnuhu noqonayaa waxaa lagu nasbinayaa marka ficilkaas go-an subxaana allahi ilaahay la nasihidiisa ayaa nasahayaahi ina almu'mina mu'minku laa yanjusu ma najaasoobayo wa najaasat lcayn ma noqonayo hadduu dhinto xataa xadiidka labaad can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalad waxay tihi caaisha kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam idaa waqtigii iqhtasala uu qubaysanayo uu doonayo inuu qubaysto min aljanaabati janaabada xaggeedana uu ka qubaysanayo qasala wuxuu dhaqayay nabigu sala allahu calayhi wasalama yadayhi labadiisa gacmood uma markaas ka gadaalna tawada'a wuu weysaysanayey wuduu'ahu weysadiisii lisalaati salaada uu weysanayey wuduu'an oo ka wuduu'ihi weysadiisii oo kale lisalaati salaada uu weysaysanayey uma markaas ka gadaalna iqhtasala wuu qubaysanayey uma markaas ka gadaal yukhallilu
wuxuu dhex gelinayay biyadayhi biasaabici yadayhi labadiisa gacmood farahooda iyo wuxuu dhex gelinayay shacarahu timihiisa yuu dhex gelinayay xataa idaa danna markuu ogaado annahu nabigu sala allahu calayhi wasalam qad arwaa inuu biyihii gaarsiiyey basharatahu jirkiisa basharata ra'si way madaxii jirkiisa afaadal maa biyaha wuxuu ku shubayey calayhi madaxa calayhi nabiga dushiisa macnaa calayhi cala ra'si madaxa korkiisuu ku shubayey 3 maraatin 3 jeer uma markaasuu madaxa dhaqo kadibna غسل wuxuu dhaqayay saa'ira jasadihi baaqiya jasadihi jirkiisa kiisa soo haray وكانت waxayna ahayd caaisha radiyallahu anha taqulu inay tiraahdo kuntu waxaan ahaa aqtasilu inaan qubaysto ana aniga iyo wa rasuulullahi ilaahi rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaan ka qubaysanaynay min inaa'in weel xaggi weelkaasoo waaxidin keligii ah naqtarifu xaalaan ka sacabaysanayno minhu min alinaa'i weelka xaggiisa jamiican xaalaan nahay dhammaan xadiidkan xadiidu caaisha radiallahu canha waxay ku bilowday caaisha kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ficilkan kaanada la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa isticmaalkiisa waxaa u badan in laga cabiro ficilka soo noqnoqda asagoon soo laalaaban oo aan takarur lahaynna waa la isticmaalaa marka xadiidka marka la fiiriyo dhaqankii nabiga sala allahu calayhi wasalam in qaabkaani soo laalaabtay ayaa lagu xambaaraya oo wuxuu la mid yahay wa kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ajwad annaasi bilkhayr cabdullaahi ibnu cabbaas markuu nabiga tilmaamayey sala allahu calayhi wasalam deeqsinimadiisa kaanadaasuu ka cabiray marka kaana oo takarur leh weeye macnaheedu iyo ficilka nabigu in badan inuu sameeyey yaa laga qaadanayaa caaisha tacbiirkeeda radiallahu canha wuxuu tilmaamayaa xadiidku 2 shay qaabkii nabigu u qubaystay uu tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamayaa caaisha iyo nabigu sala allahu calayhi wasalam hal weel inay biyaha ka qaadanayeen markay qubaysanayaan oo taas loo deliishan karo raggu inay ku dahaaro qaada karaan hambada dumarku ay soo reebeen biyaha hambada oo dumarku qaar isticmaaleen qaarkii soo haray oo aan weli dahaaro loo isticmaalin in maaragtay raggu u isticmaali karo yaa laga qaadanaya maxaa yeelay ikhtiraafay ka cabirta caaisha naqtarifu minhu jamiican inay isu dabamarayaan qofba mar weelkan biyaha uu ka darsanayo marka inay iyadu maaragtay nabigu ku dambeeyo sala allahu calayhi wasalam marka ugu dambaysa nabigu uu qaato oo ay noqoto waxaan uu soo qaatay inay tahay hambadii biyihii ay soo reebtay yaa macnuhu noqonayaa waana xugum jira oo waxaa la yidhaahdaa jawaasu iqtisaali rajuli ninka qubaysigiisa bannaanshiisa bifadli dahuuri lmar'ati naagtu biyaha ay ku dahaaro qaadanaysay wixii ka soo haray biyihii ay ku dahaaro qaadatay laftoodii maaha waa biyihii weelka ku soo haray oo aan weli aysa ku dahaaro qaadan laakiin hambadeeda marka hambadaas in maaragtay raggu ku dahaaro qaadan karanna waa laga qaadanayaa qaabka ay caaisha tilmaantay radiallahu canha oo nabigu u qubaysanayay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi marka koobaad غasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqayay dhaqitaankaasi waa midkan xadiidka ku soo marnay oo weelka intaadan gacmaha gelin labada gacmood inaad dhaqdid inay sunno tahay horan u soo marnay xadiidkii sufyaan ibnu cuyayna riwaayadiisay ku caddahay waxaa kaloo caaisha ay tilmaantay radiallahu canha qubayska nabigu sala allahu calayhi wasalama inuu ka hormarin jiray weyso weliba weysadaas wuduu'ahu lisalaati weysaqaadkii salaada oo kale ayay tilmaantay caaisha radiallahu canha weysaqaadka salaadana waxaa lagu yaqaanaa xubnahoo dhan in la dhammaystiro oo labada lugooda ugu dambaysa la dhaqo sidaas waa sunno in weyse laga hormariyo qubayska waxay kaloo markaa tilmaantay caaisha radiallahu canha isla xadiidka dhexdiisa uma yukhallilu biyadayhi shacarahu madaxa ugu horeeya wax la dhaqo marka tinta madaxa yuu nabigu gacmaha geli jiray
tacbiirka xadiidka marka la fiiriyo 10 faroodba wey maxaa yeelay biyadayhi labadiisa gacmood gacantiiba 5 farood ay leedahay markii la yiraahdo gacmaha labada gacmood farahooda u gali jiray 10 farood baan uu isugu gey jiray yaa macnuhu noqonaya waxa halkaas marka ku jira oo mulaaxada ah ma gacmaha qoyan la faraha qoyan miya la gelinayaa timaha mase gacmaha faraha maaragtay biyo wata oo gacmaha inta biyo ku soo qaadid yaad markaas timaha la gelinaysaa xadiidka riwaayaadkiisa riwaayo kamida oo riwaayatu muslimaha waxay ku soo aroortay thumma ya'khudhu al-maa'a fayudkhilu asaabi'ahu fi usul ash-sha'r biyo soo qaadanaya qofku markaas wuxuu gelinayaa farihiisa fi usul ash-sha'r timaha asaliyaashooda ilaa oo jildiga maqaarka madaxa uu ka gaaro yu gacmaha faraha la gelinayaa marka farihiyo qoyan maahane waa farihiyo biyo wata way markii riwaayadaas loo fiirsho markaas kadib markuu ogaado in madaxii tintii salkeedii oo dhan oo biyihii gaarsiiyey iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam 3 jeer toos ugu shubaa madaxii markaas ka bacdi jasadka intiisa kala dhaqaya waliba qaabka jasadka loo dhaqo qaybta hore oo midigta iyo qaybta dambe bidixda la israacsiinaya meydka sida loo dhaqo way ka duwan tahay qaybta bidixda oo soo jeedka iyo qaybta midigta oo qaybta bidixda oo soo jeedkana waa la israacsiinaya laakiin meydka marka la dhaqayo labada soo jeeda la israacsiiya qaybtan midigta dhaqaysa qaybtan kalena hadana wad dhaqaysa markaas kadib gedgedinta lagu bilaabo ثم غسل سائر جسده كله عائشة tilmaamaysan waa midkaas aan sheegnayo وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هل والكلية أيان ماركتي كقبيسنيني يتر عائشة رضي الله عنها مركبيها سجود إني وداق كران وقف مرس وقاضن كرو أيام ماركتي لغا قاضن يا الكاس حديث حديث عائشة وحيتر رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد روى ظن بمعنى علم يا بدنا لغو فسرا حتى إذا ظن مركو أغادي وحاك الله لغو فسرا ملهدي أو جانبك ماركتي ورجحي هي إن بيه كلا جارينا ظن أفعال الرجحان كمتها الشيء مركي لو ملو أدو هيسد لكن متكو حق بدنيه يا ظن قال لي هذا marka labadii macno oo ficilkan asalka iyo majaaska u kala aha labadaba uu qaadan kara ficilku arwa al-irwa ضد العطش on la'aan way waa on tirid arwa uu cokoneeyay ay dhihi jireen culimadu markay macnaynayaan macnaheedu waxa weeye uu on tiray marka on tirkii loogama jeedo macnihiisa asalka ahay ficilku maanta kuma joogo waxa loola jeedaa isalul ma ila jami'il jildi إيصال الماء انتاس ويه معنيه لكن معنيه أصل كاهي عكونين تاسويه أما أون تريد عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتر عائشة كان وحوها رسول الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وقت اغتسل وكقبي سنيه من الجنابة جنابة حقيدة وقبي سنيه جنابة درتد وقبي سنيه غسل وحودغي النبي صلى الله عليه وسلم يديه لبيس قعمود ثم مركز لبدا قعمود دقه كدبنا توضأ ويسيسنيي وضوءا وسقاده كوضوئه وسقات كيسي وكلاء وسقات كاس للصلاة صلاة وسقناد ثم مركز كقدال اغتسل وقبيسنيي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مركز كقدال يخلل وحودحقلينيي بيديه بأصابع يديه لبيس قعمود فرهودا شعره تميسا حتى إذا ظن مركي أوغاده أنه نبي صلى الله عليه وسلم قد أروى إنه بيه جارسيه بشرته يعني بشر كيسة أفاضوا وحوك شبيي الماء بيها عليها سيكر كيسة 3 مرات صدح جر ومضحي حقيس ثم غسل سائر جسده مركز كذب jirkiisa intii soo hartay ayuu dhaqay nabigu sallallahu alayhi wasallam saa'irku marna min as-suuri oo ka yimaada oo bimaana al-jami'
oo muxuu ahaa jamiic macnihiisu leeyahay saa'irku marna min as-su'ri oo ka yimaadaa oo bimacna albaaqi ah hambada marka kani waa midkii hambada maxaa yeelay madaxii oo la soo dhaqay oo jirka ka mid aan soo sheegnay intii soo hartay weeye marka saa'irkaas bimacnaa baaqi buu ku noqonayaa uma qasala wuxuu dhaqay saa'ira jasadihi jasadkiisa intii soo hartay وكانت waxay ahayd caaisha taqulu inay tiraahdo radia allaahu canha kuntu waxaan ahay aqtasilu inaan qubaysto ana aniga iyo warasuulullaahi ilaahi rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam ayaa qubaysanaynay rasuuladu waxay ku cadfan tahay ficilka mudaaric faacilkiisa mustatirka ah wain calaa damiiri rafci muttasil cadafta fafsil bidamiiri lmuttasil damiirka mustatirka ahi waa muttasil macduuf calayhi hadduu noqdo waa in munfasil ah isagii macduufka loo dhexaysiiya ana yaa maanta u dhexayda sida asalka ahayd wey fafsil bidamiiri lmunfasil min inaa'in weel xaggii ayaan ka qubaysanaynaa weelkaasoo waaxidin keligii ah naqtarifu xaalaan sacabaysanayno minhu weelka xaggiisaan ka soo sacabaysanaynaa oo aan ka soo qaadanaynaa ikhtilaafka soo qaadashada weeye weelka hadba xoogaa laga soo qaato jamiican mujtamicayni xaalaan nahay laba ku kulantay ikhtilaafkaasoo qofba markiisa soo darsanayo xadiidka saddexaad can maymuunata maymuuna xaggeeda waxaa laga wariyey bint alxaaris ah zawji nebiyi nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi wasalam zawj ninkana waa la yidhaahdaa naagtana waa la yidhaahdaa hadday isla socdaan labadooda oo zawjun wa zawjatun la yidhaahdo waa ninka keliya zawjku haddii uu keligii yahay lafdigu marna waxaa loo isticmaalaa ragga marna dumarka ninka iyo naagta labadaba waa la yidhaahdaa waa luqatun fusxa liannaha waradat fi lqur'aani alkariim uskun anta wazawjuka aljanna zawjuka zawjkaasaa laga cabiray xawa saa darteed marka luqa fusxa weeye in naagta laga cabiro zawj markaas ninku uusan la socon can maymuuna xaggeeda waxaa laga wariyay bint alxaarita zawji nabi nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi wasalam annahaa maymuuna qaalad waxay tidhi wadactu waxaan u dejiyey oon u dhigay lirasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama waduu'a aljanaabati janaabada biyihii looga weysaysanayey fa akfa'a markaasuu wuxuu ku shubay nabigu sala allahu calayh wasalam ama ku gediyey ay qalaba biyamiinihi midigtiisa calaa yasaarihi bidixdiisa korkeeda maratayni laba jeer aw alaaan ama saddex jeer uma markaas ka gadaal qasala wuxuu dhaqay farjahu farjigiisii buu dhaqay nabigu sala allahu calayhi wasalam uma markaas ka gala daraba wuxuu ku garaacay yadahu gacantiisa bilardi dhulka aw bilxaa'idi ama derbiga maratayni laba jeer aw alaaan ama saddex uma markaas ka gadaal tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday waqasala wuxuuna dhaqay wajhahu wejigiisa iyo wadiraacayhi labadiisa dhudhun waa labadii gacmood uma markaas ka gadaal afaada wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa almaa biyaha uma markuu madaxii ku shubay biyihii kadibna qasala wuxuu dhaqay saa'ira jasadihi jirkiisa intii soo hartay uma markaas ka gadaal tanaxaa wuxuu ka dheeraaday makaankii uu ku qubaysanayey faqasala markaasuu wuxuu dhaqay rijlayhi labadiisa lugood faataytuhu markaasaa nabiga waxaanu la imid oon u keenay bikhirqatin cad marahan u keenay falam yuridhaa mana uusan doonin khirqadii fajacala wuxuu gudagalay yanfudu inuu filqayo almaa'a biyaha biyadayhi labadiisa gacmoodna uu iskaga filqayo xadiidkan weliba waxaan ku jirnaa baabuljanaabaan ku jirnaa xadiidkan maymuuna bintulxaaris radia allaahu canha waxay tilmaamaysaa nabiga sala allahu calayhi wasalama markuu qubaysanayo inuu isaguna oo janaabada ka qubaysanayo weysada ka hormarin jiray qubayska macnaha ay tilmaamaysaa waa sidaas sidii xadiidkii hore ee caaisha iyay tilmaamaysaa marka tilmaanta waxay ka bilowday faakfa'a biyamiinihi calaa yasaarihi faakfa'a ay qalaba wuxuu ku gediyey biyamiinihi midigtiisa calaa yasaarihi bidixdiisa korkeeda laba jeer ama saddex jeer riwaayadii horena
غسل يديه واتي أهد واسكو معنى لبدودو labada kaf dhaqitaankooda inuu ka bilaabay ayaa labada raawiba isku raacsan yihiin thumma ghasala farjahu markaas kadib ayuu nabigu wuxuu dhaqay farjigiisa farjigii iyo dhaqay weeye si uu u zuuliyo waxyaabaha maaragtay ku dhagay farjiga oo markaas wixii markaas jira ah waana sida wanaagsana la yiraahdaa qaabkaano istinjada laga bilaaba dhaqitaanka janaabada markuu ka qubaysanayo waa inuu waxa ugu wanaagsan inuu ka bilaabo maxalul istinjada inuu ka bilaabo oo rafcul janaaba maaragtay u niyeysto hadhow marka uma baahna inuu mar labaad soo dhaqo tilmaanta xadiidkana waa laga qaadanayaa thumma ghasala farjahu marka uu farjigiisa dhaqay kadib nabigu sallallahu alayhi wasallam gacantii dhulku ku dhufday ama derbiga macnaheedu waa maxay macnuhu waxa weeye ziyadatun fi tandiif wa ziyadatun fi tandiif ciidu waxay goynaysaa ama derbiga laftiisa ciid ka samaysane waxay ciidu goynaysaa qurki raaixaday goynaysaa macnaha meesha ku jira ya sidaas ah laakiin asalku waxa weeye inuu maaragtay marka hore uu istinjooday nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas ka bacdina oo luqluqday oo uu maaragtay istinshaq iyo sandaarsi uu ka dambeysiyay wajiga iyo labada gacmood uu dhaqay markaas kadibna uu madaxa biyaha ku shubay markaas ka bacdina jirkiisii oo dhan uu dhaqay intaas waxay Aisha ku dartay waxa la Maymuna bint al-Harith Maymuna waxay ku dartay thumma tanaha faghasala rijlayhi inta waxa laga qaadanayaa labada lugood dhaqitaankooda in la dibdhigo iyo xadiidkaas qaybtaasi keenaysa marka macnuhu waxa weeye meesha aad ku qubaysatay markii aad qoyska kala dhamaysid yaad inta ka tagtaan meel kale tagaysaa markaas aad lugaha dhaqaysaa macnaha xadiidku uu tilmaamayaa waa sidaas marka culimada qaar waxay leeyihiin weesada laga hormarinayo qubayska kuma jiraan luguhu inta kale waa intii kale oo xadiidkani u daliishanayaan thumma tanaha faghasala rijlayhi meeshuu ku qubaysanayay uu ka tegay meel kale uu tegay markaasuu lugaha dhaqay laakiin imaam shaafici ayimo kale waxay leeyihiin ikmaalul wudu ayaa la rabaa oo xadiidkii hore Aisha yaa wuxuu tilmaamayay wuduu'ahu lis-salaati salaada marka loo weesaysanayo weesada salaada waxaa ka mid ah lugaha in la dhaqo marka xadiidka tashbiihu wuxuu keenayaa in maaragtay xubnihii weesada la dhammaystiro marka labada xugunba waa ay jiraan imaam Abi Xaniif wuxuu leeyahay iyo ayimo kaloo isaga la jirta waxaa sunno ah ta'khiiru ghasli rijlayni can ikmaali lwuduu sida lafdigan laga qaadanayo xadiidka taasaa sunnahay leeyihiin imaam Shaafici laakiin wuxuu leeyahay waxaa sunnaha ikmaal lwuduu jaryan cala daahiri xadiidi Caaisha almutaqadim waayahay faataytuhu bikhirqatin falam yuridha inay u keentay Maymuna nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu iskaga qallajiyo biyaha qubayska iyo dahaaradaas yaa xadiidka ku jira laakiin nabigu uusan ka aqbalin sallallahu alayhi wasallam ayimada marka qabta inaan damaa dahaara la iska qallajin xadiidka qaybtaas ay qaateen falam yurid hadaas ay qaateen sida darteed waxay yiraahdeen qofku markuu weesaysto iyo markuu qubaysto waa isku xugum oo dahaara ay yihiin inuusan iska qallajin roon maxaa yeelay waa atharul cibaadada raadkeedii weeye waxa ka sii dambeeya xadiidka qaybtan faja'ala yanfudu al-ma'a biyadayhi markaasuu wuxuu gudagalay inuu iska filqayo biyihi labada gacmood oo isaga filqayo marka labada gacmood filqitaankoodu waxa weeye waa iska qallajin weey xadiidku marka qayb waxay tusinaysaa inuu nabigu doonin dharkii uu isaga qallajinay qaybna waxay tusinaysaa inuu maaragtay jafay oo filqay si uu iskaga qallajiyo labada macnaba way jiraan oo ayimada qaar waxay leeyihiin falam yurid hada san qaadanaynaaho oo la iska qallajin maayo dahaarada biyaheeda bacdina waxay leeyihiin faja'ala yanfudu al-ma'a biyadayhi an qaadanaynaaho waa la iska qallajinayaa marka waxa la dhihi karaa
dalla alxadiidu calaa kila alamrayn xadiidku labadaba wuu tusiyey yaa la dhihi karaa. can maymuuna bint alxaaris waxaa laga wariyey maymuuna bint alxaaris zawji nabiya nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi wasalam annaha maymuuna qaalad waxay tihi wadactu waxaan u dejiyoon u dhigay lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wuduu'a aljanaaba janaabada weesadiisii wuduu'a aljanaaba yacni intuusan qubaysanin oo janaabada ka qubaysanin weesaduu ku weysaysa laha ayaan usoo diyaariyey wey fa akfaa markaasuu wuxuu ku gediyey biyamiinihi midigtiisa calaa yasaarihi bidixdiisa korkeeda maratayni 2 jeer aw 3 ama 3 jeer uma markaas ka gadaal qasala wuxuu dhaqay farjahu farjigiisa uma daraba markaas kadib wuxuu ku garaacay yadahu gacantiisa bilardi dhulka aw ilxaa'idi ama derbiga maratayni 2 jeer aw 3 ama 3 jeer ku garaac uma markaas ka gadaal tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday waqasala wuxuuna dhaqay wajha wejigiisa iyo diraacihi labadiisa dhudhun uma markaas ka gadaalna afaada wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa almaa biyaha uma markaas ka gadaal qasala wuxuu dhaqay saa'ira jasadihi jirkiisa inta soo hartay uma markaas ka gadaal tanaxaa wuxuu ka dheeraaday makaankiisii faqasala markaasuu dhaqay rijlayhi labadiisa lugood faataytuhu waxaan ula imid bikhirqatin cad mara ayaan ula imid mindiilay u keentay falam yurid mausan doonin nabigu sala allahu calayhi wasalam haa khirqadii fajacala wuxuu gudagalay yanfudu inuu filqayo almaa biyaha biyadayhi labadiisa gacmoodna uu ku filqayo. xadiidka afaraad can cabdillaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma ana cumara bna alkhadaab sayid cumar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sayid cumar yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisow ayarqudu ma seexanayaa axadunaa qofkeen walxaal huwa isaguna junubun uu janaabo qabo qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam nacam haa wuu seexanayaa idaa waqtigii tawada'a uu weysaysto axadukum qofkiin idaa waqtigii tawada'a uu weysaysto axadukum qofkiin falyarqud ha hurdo. xadiidkani wuxuu tilmaamayaa wuduu'u ljunubi qabla annawmi ayuu tilmaamayaa qofku isagoo janaabo qaba hadduu rabo inuu seexdo inuu weysaysto inay ma'muur tahay oo la faray ma'muur inay tahay. imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa sunno. a'immada kale sida imaamu maalik qaara waxay leeyihiin waa waajib waajib weyn maxaa yeelay riwaayaad ku soo aroortay siiqatu lamara jirto tawada waqsil dakaraka uma nam weysayso dakarkaaga dhaq markaas kadibna seexo. sayid cumar markuu janaabada weydiiyey habeenka yuu sidaas nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laakiin xadiidka amaraa ku soo aroonay amarkaas inuu amrulwujuub yahay inuu amrunadbi yahay xadiidka lafdigiisa kuma kala caddaa laakiin waxaa ku cad wuduu'u ljunubi qabla nawmi ma'muurun bihi janaabada qofka qaba intuusan seexan inuu weysaysto in la faray taas unbaa xadiidka ku cad oo aadaabta islaamkay ka mid tahay middaa nabigu tilmaamayo sala allahu calayhi wasalam. can cabdillaahi bni cumar ana cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu qaal yaa rasuula allah ilaahi rasuulkiisow ayarqudu ma seexanaya ma hurdayaa axadunaa qofkeen walxaal huwa isaguna junubun daa janaabatin mid janaabo qaba uu yahay oo janaabo u saaxiib ah qaala markaasuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam nacam haa wuu seexanayaa idaa waqtigii tawada'a uu weysaysto axadukum qofkiin falyarqud ha hurdo. xadiidka shanaad can ummi salamata ummu salama xaggeeda waxaa laga wariyey zawji nebiya nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi wasalam qaalad waxay tihi ummu salama jaa-ad waxaa timid ummu sulaym gabadha la yidhaahdo imra'atu abi dalxata abu dalxa xaaskiisa ah ilaa rasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa intikaahay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad ummu sulaym waxay tihi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisow in allaha ilaahay laa yastaxyii ay laa yamtanicu kama reebtoonaado min alxaqi min dikri lxaqi xaqa xusitaankiisa ee fahal cala almar'ati naagta korkeeda ma yahay min quslin qubays idaa waqtigii hiya naagtu ixtalamad ay dhadhabto faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulka ilaahay wuxuu yidhi nacam haa idaa ra'ad haddii ay aragto
الماء بيه جنابتها. حديث كان سليم قبل الليلة وأنس بن مالك هو يدي يا نبي قوتي صلى الله عليه وسلم سؤالي ويديسي لكن انت سؤال ويدينين وهي سميسي وحلا يراهدو تمهيد هي جوجل ديك وحلا يراهدو يي سميسي عذر داري سو هرمريسي maxaa yeelay waxay rabtaa inay sheegto waxyaabo dumarku ay ka xishoodaan sheegistaankiisa waxyaabo dumarku ay ka xishoodaan sheegistaankiisa yay rabtaa inay sheegto markaas ay cudur daar soo hormarisay inna allaha la yastahi min alhaq ilaahi subhanahu wa ta'ala kama tago inuu xaq sheego marka kadibna su'aasheedii waxay noqotay qofka dumarka qubaysku ma ku waajibaa sida ragga ugu waajibo miyuu ugu waajibaa ida hiya ihtalamat hadii ay isku dhadhabto oo ay elelado sidaas bay tiri Sulaym su'aashaasi nabiga weydiisay sallallahu alayhi wasallam nabiguna sidaan uu ku jawaabay nacam ida ra'atil maa marka xadiidka macaanida laga qaadanayo waxa ugu horeysa wujubul ghusli bi inzali al mar'ati al maa haweenaydu haday biyo dajiso biyo kaanto inay maaragtay inay qubaysatahay uu waajib yahay ya xadiidka laga qaadanaya ilaa qof dumar uu ku tacalluqahay ninka sidoo kale asaguna markii uu isku junubo oo maaragtay biyo manida uu dajiyo oo inzaalul mani ay timaado asagana waa ku waajibaysaa oo qubayskiya ku waajibaya laakiin waxa laga qaadanaya xadiid kale innamal maa'u min al maa xadiidkaas kale yaa laga qaadanaya oo raggu soo hoosgelayaan waxaa kaloo xadiidka laga qaatay inzaalul maa'i fi xaalati an-nawm yani qofku markuu hurdada ku jiro haddii maniye ka timaado muujibun lilghusli ka inzaalihi fi xaalati al-yaqdati soo jeedka manida ku timaada iyo midda jiifka ku timaada labadoodu inay isku xugum yihiin oo markasta qofku inuu ka qubaysto inay waajib tahay xadiidka waa laga qaatay qaybta ugu dambaysa idaa ra'atil maa dada waxay qabaan haweenayda biyahoodu inaysan muuqan oo waxaa lagu gartaa inzaalkeeda shahwadeedu inay kacdo oo maaragta dareenkeedu kaco yaa lagu gartaa yiraahdeen biyo maaragtay haweenay ay leedahay oo muuqdaay ma jiro laakiin xadiidka daahirkiisa markaad fiirisid idaa ra'atil maa ru'ya yaa nabigu ka cabiray sallallahu alayhi wasallam marka in la arko oo biyaha dumarka la arkayo yaa xadiidka daahirkiisu noqonaya waxa kaloo lagu fasiri karaa ra'adan in bimacna calima la yiraahdo oo idaa ra'atil maa biyaha haday ogaato oo maxay ku ogaanaysaa li'annaha ta'rifu inzaalaha bi shahwatiha waxay ku taqaanaa shahwadeeda kicitaankiisa yay ku taqaanaa biyuhu inuu imaanayaan markaasna saas way noqon kartaa oo ra'ada cilmiyadii laga dhigin ee laga dhigo mid waxaan leeyahay aan laga dhigin ru'yadii arkiyada basariyada ahayd ee laga dhigo midii cilmiyada ahayd taasina waa suurtagal weeyo xadiidka macnihiisa way noqon kartaa marka isku duuduub xadiidku macnaha uu tilmaamayaa waxa weeye mar haddii inzaalul mani uu yimaado ama hurdo qofka ku jiro ama soo jeedee qubaysa waajib ku ah عن أم سلمة حقيقة وحلقة وري زوجي النبي حاسكيسا صلى الله عليه وسلم قالت وحيتر أم سلمة جاءت وحاتمد أم سليم قبل أم سليم ليراهدو امرأة أبي ضلحة أبو ضلحة حاسكيسا إلى رسول الله إلى رسول كيسا انتكاء أين أتمت صلى الله عليه وسلم فقالت وحيتر أم سليم يا رسول الله إلى رسول كيسا وإن الله إلهي لا يستحيي أي لا يمتنع كما رأيتموه من الحق من ذكر الحق على حذف مضاف من ذكر الحق حق الحسيتان كيسا حقيسا فهل على المرأة هوين ذكر كذا ميه من غسل قبيس وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر من غسل من تزايد غسل ومبتدا آخر على المرأة خبر مقدمة إذا وقتك قبيس مكو واجبة هي يدو احتلامات اسكول دفتوه احتلام كأصلها وحال لديه جري قرو وحال يراهده وحلم كي هلكس وكيمد لكن هذا وحال الله وضع وقرو الله صعده إنزال المني أي الله صعده ما يصحبه إنزال المني أي له لجده مركا هدي يسكن دفت مركا لليه هدي بياركتوي
faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi nacam haa idaa waqtigii ayaa qubaysku ku waajibayaa ra'ad ay aragto haweenaydu almaa biyo ama ra'ad ay ogaato haweenaydu almaa biyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam